tahay meel iyadoo ay kastoo aad dhawaanahan joogto. socotay qabanqaabada xulista baarlamaanka cusub ee maamul goboleedka galmudug ayaa madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf waxa uu ku tilmaamay guddigii hawsha ay u saartay dowladda federaalka ahi mid aan shaqada awood u lahayn sharciguna aanu u fasaxayn waxaanu magacaabay guddi cusub oo ku sheegay mid farsamo oo qabanqaabin doonta hawsha xulista baarlamaanka samiire cabdilaahi jaamac ayuu u warramay guddigu waxa weeye guddigii farsamada oo odayaasha u yeeri lahaa oo baarlamaanka markii la xulahayo oo guddigii farsamada oo doorashada waa tahay guddi kaloo farsamo oo ay dowladda federaalka soo samaysay oo soo magacowday oo haatan doorashadii ku howlan ayaa jira marka sidee isaga garab shaqaynayaan laba guddi taas dee waa power of use wey wax uu shaqeeya dowladda federaalka halkan sabab ma laha dastuurka lagu qorahayo wixii aan dastuurku qorayna ku tillaabsataa iyadaa maaragtay dhibaato samaynaysa marka anagu dib ma rabno odayaashii iyo wixii meesha joogay iyo sida waxusawaana si fiican ma aha waxaana keenay anaga oo aniga anuhumid iyo raggayga waxa weeye in aan wax badan oo khaldan oo aan aragnay inaysan galmudug dan u ahayn ayaa meesha ka socda marka badbaadino oo xildhibaano anfacahaya iyo dowlad aan gacan ku-filis ahayn dowlad dab ah oo dadku rabo inay fadhan doonaan waa tahay madaxweyne horaan heshiis ayaa qaadatay maxaa hadda oga baxday oo haddana hor leh heshiiska aan qaatay wuxuu ahaa markii horeba in aanu annagu doorashada hagno oo hogaamino ay dowladduna nala joogto mar dambe ayaa maadaama khilaafaad yajireed annaga iyo ahlusunnada iyo ayaan waxaanu ku nidhi bal adinku wada ayaan oo dadkii isku soo dhaweeya oo annaga iyo ahlusunnada laftiiya arrintii sidaas ahayd si kale ayay u bedelantay oo markii ra-iisul wasaaruhu yimid meeshiiba wuxuu ka dhigay in aan dowladyo meesha ka jirin ee frontiiro inay tahay camal muudhan taasina wax shaqaynaya maaha galmudug 2006 ilaa hadda way jirtay 2014 shan iyo tobankii ballaaratay 2017 way kaamilatay intaas dad unbaa ka shaqaynayay wax allaaliya wixii lasoo maray iyo midnimadii iyo maaragtay mashaariicdeedii iyo wax allaaliya wixii ka socon lahaa gobolka muddo 2 sano ku dhow dowladda federaalka way oryaamisay markii dambe ugu dambaysana dee adagii galmudugta ahayn iyo ahlusunnadii isku dhifat markaasay ahayd markii anugu aan ka horeelay oo tegayo yiri bal wax dhisa 6 bilood iyo 7 bilood baa la sugayaa wax allaaliya qabsoodayna ma jiraan waa tahay tiro dhowr jeera ayaa dowladda federaalka heshiis la qaadatay haddana waad ka baxday marka ma la dhihi karaa go-aankaana berri waad ka laaban kartaa taas su-aal fiican maaha laakiin weligay allah heshiiska hawangalay kama bixin waxaan ka baxay ma jirto heshiis haddii laga baxana dowladda federaalka ka baxaya waayahay waxaa nagu maqaalo ah inaad safar ku sii tahay puntland marka arrinkaa maxaa ka jira warkaas war kuteenaya wax ka jira lama arko puntland waan tegi karaa laakiin hadda wax borogaraama oo inaan puntland tago